بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. waxaan maanta oo taariikhdu ay tahay 25 bishii Agost ugu bishaaraynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee jecel nabadda iyo barwaaqada dalka in magaalada Ceelbuur gacanta lagu dhigay ciidamada Soomaaliyeed ee sharafta badan xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ayaa si awood ah oo xooga ku galay kuna qabtay degmada magaalada Ceelbuur taasoo ognahay waxa ay u ahayd nimanka khawaarijta muddooyinkii la soo dhaafay 16 sano ee la soo dhaafay waxa ay u ahayd aan ognahay nimanka khawaarijta shabaabka ma aha kaliya meesha gacanta lagu dhigay Ceelbuur kaliya ma aha waxa laga qabtay wabxo waxa la qabtay dac waxa la qabtay cows weyne waxa la qabtay meesha la yiraahdo cali heel waxa la qabtay dhammaan guud ahaan in yar mu ogiye waxa inta badan gacanta looga hayaa khawaarijta dhulka 16 sano ay ku dhibaateynayeen ummadda Soomaaliyeed waxa mahad ilaahay ah maanta in magaalada Ceelbuur ay mar dhow saacadan aan joogno ay gacanta gashay sidaan rajaynaynana meesha la yiraahdo magaalooyinka kale ee dhiman ay kamid tahay Galhareeri oo ah inta yar oo gacantooda ku hartay iyadana inay gacanta soo gali doonto waqti aan dheerayn ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu bishaaraynaynaa marka guushaas waxaan leenahay ciidanka Soomaaliyeed ee sharafta badan waa aad bay ugu mahadsan yihiin ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay ciidamada xaq u dirirka ah ee la dagaalamaya khawaarijta dib u dhaca dalka ku riday iyo diinta inay meel uga soo wada jeestaan oo ay ku taageeraan daba istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waan rajaynaa waqti aan dheerayn inaan dhammaan uga wada bixi doono inta dhiman dhibaatada ay nagu hin jireenna ay meeshaas ku dhammaan doonto barwaaqo iyo horumarna ay gaari doonto ummadda Soomaaliyeed sida ugu dhaqsiga badan dhibaatada naysay ee ugu weyn waxay ahayd amni darrada nimankaas ay ummadda ku ayeen waana soo gabagaboobaysaa dhowaan ummadda Soomaaliyeedna mar kale waxaan leeyahay dadkaas walaalaha ah ee dhalinyarada ah ee horumarka dalkooda iyo dadkooda u jihaaday inay garab istaagaan gacan siiyaan waa ognahay haddii maanta la yiraahdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guusha dalkan uu ka gaaray laguma gaari karo wax sahlan laguma gaari karo marka haddii la isu kaashado ciidanka in la dhiso oo ummadda Soomaaliyeed uu isu kaashato inay dhisaan ciidamada uma baahanayso dawlad maanta ku filanna ma jirto dawladeenu waa curdan waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan waxaas iyo waxa maanta ciidamadaas ay qabteen dawladda Soomaaliya khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee go'aanka ku qaatay in khawaarijta lala dagaalamo iyadoon awood qaranku u lahaa loo jeedo awood intay la eg tahay in uu ku dhawaaqo dagaal isla markaasna uu maanta u fadhiyo jiqda u fadhiyo si guushaas loo gaaro marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay iyagoo fiirinaya arintaas madaxweynaha jiqda ku jira maanta ciidamadii sida u dagaalamay inay mataqaanaa garab siiyaan waxaan u mahad celinayaa gabdhaha walaalaha ah cuntada darayga ah u sameeyeen askarta ciidamada qalabka sida ku jira socodka iyo hayaanka ku jira waad ogtihiin oo ciidamadu marka ay ku jiraan dagaal waxay u baahan yihiin wax raashin qalan oo ay qaataan ma gaari karto haddii raashin inay karsadaan ay noqon lahayd maanta intay gacanta ku qabteen kuma qabteen marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed inay ciidanka xil gaara iska saaraan ee aysan ugu simin dawladda Soomaaliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya guulaysan dawladda Soomaaliya guulaysato ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay guul salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh